madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyn taxsi wadajir ah u diray shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay ka soo gaartay qarax argagixisada oo ay ka geysteen goob dad masaakiin ay ku sugnaayeen oo ku taala agagaarka dekedda weyn ee magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo ciidamada amniga oo sugayay ammaanka goobtaasi. waxa uuna eebba uga baryay in jannadiisa uu geeyo kuwa dhintay dhaawacyadana si dhaqsi leh ay u bogsoodaan. sidoo kale waxaan aad iyo aad uga tacsiinayaa geesiyaasha ciidanka qalabka sida ayagoo ka hortagayo baabuur lamid oo magaalada Muqdisho uu soo gala rabay ayaguna ku geeriyooday siinka dheer afgooye iyo kuwii ku dhaawacmay inta waxaan ilaahay ha caafiyo. dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ummadiisa ugu baaqay in ay u midoobaan oo ay sii laabaan dagaalka caalamiga ah ee ay kula jiraan argagixisada al-shabaab isagoo sheegay in heerka dhimashada ay marayaan kooxahaasi loona baahan yahay in ciidanka qaranka lagu gacan siiyo dagaaladaasi si dalkeena iyo dadkeena aan uga ilaalino sharwadayaashaasi ayuu raaciyay madaxweynaha dalka. sida ciidankeena ay awood u leeyihiin oo ay uga hortagayaan baabuurkaas ku qarxay siinka dheer sidoo kale wuxuu soo socday magaalada Muqdisho inuu dad Soomaaliyeed oo qaxweynayo oo shaqadiisu wixii u dhaarminayo oo shaqada inay galaan rabo saakay wax ay dambi ay galeen aanay jirin dhibaatadaas loogu geystay ka kalena sidaas oo kale wiilashii hor istaagnaa ee ka hortagay meesha inuu ku qarxa sababay waxay leeyihiin sharaf iyo haybad qarannimo inaan u hayno waxaan Allah u naxariisto kuwa maxaan ku raadayay dhaawacmayna ilaahay ha caafiyo. sidoo kale dadkii Soomaaliyeed ee abriyada ahaa ee dambi ay galeen aanay jirin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meeshaas inay aad iyo aad u fiiriyaan inta ay la ag tahay cadaawadda iyo xumaanta nimanka nabadiidka ah ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed ka ummad ahaan ma aha waa askari dagaalamayaan la diriraya ma dhahayo xataa yani dawladan la diriraya ma dhahayo dad shacaba oo saaki guryahooda ka soo baxay u soo dhaqaaqay in ay shaqaystaan oo ay muxuu ahaay qoysaskoodii caawa ula noqdaan wixii ay cuni lahaayeen ee banaanka dekedda taagan in baabuur inta la soo dhaxgeliyo lagu qarxiyo xigmadda ku jirtaa dadka Soomaaliyeed aad iyo aad mid inuu fahmaan raba waa cadaawad jiritaanka ummadnimo ee Soomaalinimo ee nala dirsan yahay waay cadawga inta la eg dhamaanteen inaan ka foojignaanaan u baahannahay dhamaanteen inaan hal dhinac uga soo wada jeesano isku xiranaa loo baahan dadka Soomaaliyeed mar kale waxaan ku bogaadinayaa dagaalka ay ku jiraan oo dagaalka caalamiga ah iyo guulaha ay ka keeneen oo dad badan oo tirsanaya Soomaaliya inay ka awood badan yihiin ay keeni kari waayeen iyo midda labaad oo ah maanta meelihii dhan way ka yimaadeen shacbiga qaxweynaya subaxdii quraacanaya shaqada u diyaar garaysan inay galaan in dhaxdooda qarx ay keeneen ilaahay idinkiis birina awooddaas way dhaafaysaa ma heli doonaan intii hore dadaalka aan soo galno aan laba jibaarno. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada qalabka sida ku ammaanay doorka adag ee ay ka qaadanayaan sidii looga hortagi lahaa nabadiidka isagoo ku bogaadiyay ciidanka amniga ee ka hortagay gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyay xilli uu ku sugnaa duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho. aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa ciidamada amniga Soomaaliyeed oo cawaya casr u taagan in ay ka hortagaan muujiyayna awoodda iyo maxaan ku raadayay mudnaanta ay u leedahay amniga shacabweynaha Soomaaliyeed ciidamadeenu garab istaagno dawladeenu garab istaagno khilaafka iyo xanta iyo xudaadna iska yareyno cadawgeenu oo dhinac uga soo wada jeesano danaha dawladnimada inaan dawlad rasmi ah oo xoog badan iyo ciidan xoog badan iyo awood dhaqaale xoog badan inaan yeelano iyo isku duubnaan dadkeenu isku duubnaadaan waa sida kaliya cadawgan aan uga hortagi karno waana ka hortagaynaa insha Allah waana dhamaynaynaa haddii alla yiraa waan ka guuleysanaynaa mar kale waxaan leeyahay intii dhimata Allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay dhaawacooda ha bogsiyo sida ugu dhaqsiyo badan. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka soo laabtay safar 2 maalmood qaatay oo uu dalka Itoobiya ku tagay halkaas oo uga qayb galay shirka madaxweynayaasha IGAD ee 29aad shirkaas oo Soomaaliya si weyn loogu amaanay horumarada ay sameysay iyo guulaha ay ka gaartay doorashooyinka dalka ka socda.
faysal muuse maxamed SNTV